fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe dheh channelka, like saar, siina share garee muuqaalka. mahadsanid. السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحاب قيمها بدن وكسو دوادا شيكدي لما قعبحدي بروغو إيو ميدب تكور جعي أصحاب قيمها بدن وقيبتي أفراد شيكدي لما قابحدي مروغو إيا ميدبتكور جعيل وحان وقصو هذالني دوكسيجي لحي جورجي إيو عدادسكي وكلا كلمي ما انتنا وحان وحد دونا قيبت شنات اسكو دايجي دلكيسا إيا وحي سوينو كبد بادو حدا بدأ قيستو جورجي إنو واشو وحير أيا وغهر سنة وحو سمية أيو قرن لا فكر بدن كدب وحاوسو بحدي فكرة إنه يسجلو وايو نرشو قيمة ماله حرمر وحبرشو ماله ميد عافماد ماله ميد دقال ماله ميد شقو ماله سيدا درتيد أيوغو عن صدي يدون لأغين إنه يسخارجيو يساقو راسنا يميل عدلوء أو عن لغا أركين كنا هذا قيو إريادن صوصعدو دونيدان درحمادا ظروفتيدو أدكتهي عدكو ديرنا حيسانا دادك عن لغو أرق إنا نسدلان كدورتي ها حنون بدنا ويلكي يرى ريرزير وحاد كلا ugu dhamaatay inuu ka hayaamo dunidan dhibka badan maalin maalmaha kamid ah ayuu George qaatay xarig isagoo u baxay miyiga magaalada uu markaas joogay in ka badan 20 kiiloomitir markuu socday ayuu yimid damal ama geed weyn laan kamid ah laamihii geedka ayuu xarigii surtay wuxuuna u sameeyay qool uu doonayo inuu madaxa gashado isagoo dhulkana sare uga qaaday si uu u soo lalmado naftuna dhaqsi uga baxdo George maadaama uu in muddo ah soo lugeynayay ayuu isiri wax yarna soo George wuu gamay maadaama uu daalanaa geedkuna uu aad u qaboobaa wuxuu jiifay maalintii intii ka harsanayd habeenkii oo dhan iyo maalintii xigtay gelinkeedii hore kadib wuxuu soo toosay isagoo guud ahaan jiifay 25 saacadood oo xiriir ah waxaan oran karnaa wuu suuxay George markuu soo kacay ayuu isweydiiyey su'aal ah imise saac baad jiiftay nasasho hal saac kadib walina uusan ku dhaqaaqin go'aankii isdilka ahaa ayuu arkay quraanjo yaryar oo geedka fuulaysa wuxuu bilaabay inuu daawado habka ay geedka u fuulayso waxaa dhacday in quraanjadii u dambeysay ay soo dhacday mar labaad ayay kortay wayna soo dhacday mar kale ilaa 15 jeer ayay soo dhacday isaguna inta uu daawanayay markii waxay ka wareegatay dhinacii ay ka dhacaysay mar walba una wareegatay meel cusub si toos ah ayayna u kortay ilaa ay gaartay saaxiibadeedii kale George dareenkiisii waxba iska bedelay waxaana ku dhalatay fikrad ka duwan tiisii hore ee dilka ahayd isagoo tusaale fiican ka helay ficilkii quraanjada yarta isagoo oranayo miyaan ka liitaa quraanjada yarta wuxuu iskula hadlay hadalladan soo socdo maanta waxaan helay xirfad aan ku badbaadin karo naftayda guulna aan ku gaari karo taasoo ah in aan ka bedesho iskuulka aan hadda dhigto una bedesho mid kale waxaan rajaynayaa in aan guulaysan doono waayo cashirkii quraanjada ay bartay ayaa ahaa in meeshii aad ku guuldaraysato aad ka wareegato wuxuuna isku waaniyey erayadan soo socdo miyaan dili karaa naftayda miyaan anigu nacay naftayda
miyaan ka liitaa quraanjada yartaa maan ka wareegto iskuulkan maankayga ku wareeray miciina aanan ku lahayn miyaan dili karaa naftayda haddaba George Yare halkii ayuu ka soo lugeeyay maalinnimadii ayuuna dib ugu soo laabtay iyadoo laga walwalsanaa meesha uu aaday su'aal la weydiiyey oo ahaa xagee aaday maxaa kugu dhacay wax jawaab ah kama uu bixin waxaa maalmo yari ka harsanayd xilligii la furi lahaa iskuullada George wax farxad ah uma lahayn iskuullada la furayo waayo waxaa weli maskaxdiisa ka buuxayo afartii jugood ee afartii sano ee tegay uu soo maray halka ardaydii uu la fasalka ahaa ay xilligani fariisanayaan dugsiga sare George wuxuu ku fikirayay siduu codsi ugu qoran lahaa iskuul kale iyo natiijada ka iman karta haddaba la soo dhageystay qaybta lixaad ee sheekadii la magac baxday murugo iyo midab kor jacayl waa halabuurkii abwaan Cabdullaahi Macalin Axmed Timcadde iyo tubintii Cabdullaahi Maxamed Cabdi CMC oo idin leh nooli kulanto degan dhulkii hooyo dergiyo nin dhowr qaday